waxaa markii ugu horeysay magaalada Hargeysa laga hirgeliyay studio casri ah oo ay aqoontooda kor ugu qaadi doonaan suxufiyiinta ka howlgala gudaha Somaliland kaas oo laga dhex sameeyay jaamacadda Hargeysa waxaana hirgeliyay safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland Ambassador David Conker munaasabad lagu qabtay jaamacadda Hargeysa gaar ahaan studiogaasi casriga ah ayaa waxa ka qayb galay safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya iyo Somaliland xubno ka tirsan xukuumadda iyo maamulka jaamacadda Hargeysa waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse isaguna safiirka uga mahad celiyay sida uu garab istaagay saxafiyiinta Somaliland sheegayna in baahi weyn loo qabay studio-gani. Journalism in Somaliland, there's a lot of professionals. They see themselves as they are professionals journalism in the field, but they are not journalism in this country. So we take this step with helping from the British government, especially your ambassador UK in Somalia and Somaliland, to build the journalism faculty in this university, to train the students. Thank you very much, Ambassador, for your personal dedication, for the great work your country is doing to meet the education needs of the students in this country. gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Solja wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo wasiirka warfaafinta Somaliland ayaa iyaguna si isku mid ah uga mahad celiyay dawladda Ingiriiska iyo safiirkaba studio-gani casriga ah ee ay u dhiseen suxufiyiinta Somaliland ka howlgala. Mr. Ambassador and the UK government are very much thankful for their willingness to improve our journalism in various studio. The instructors and the University of Hargeisa available resources so that they will contribute to development of their Somaliland nation. Thanks to government UK, their support, always they support Somaliland in many areas. And building capacity in journalism area is one of the areas that government UK always supports Somaliland. So thank you, Mr. Ambassador. runtii waxa sharaf weyn u ah in aan maanta ku soo gabagabeeyo ama soo xiro iyada oo fag maanta meel aqooneed la dhisay oo ay jaamacaddu mas'uul ka tahay mas'uuliyiintana waxaan farayaa tii la inoo dhisay hala ilaaliyo. geestiisa David Conker safiirka dalka Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland oo halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in markasta isaga iyo dawladdiisa ka go'an tahay inay taageeraan Somaliland dhinaca aqoonta iyo arrimaha bulshadaba. I hope this new centre will also contribute to developing a wider, deeper understanding in Somaliland of the vital role of the media alongside government and civil society, and how the three together. waxaana halkaasi suxufiyiintii goobtaasi ku sugnaa su'aalo iyo aragtiyo kala duwan isku weydaarsadeen safiirka dalka Ingiriiska iyadoona gabagabadii munaasabadaasi mas'uuliyiinta jaamacadda Hargeysa ay abaalmarino guddoonsiiyeen safiirka iyo xubnihii kale ee kala shaqeeyay hirgelinta studio-gani casriga ah. Waciid Duruus Cabdillah Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ah Universal Hargeysa.